السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، باوركي ولوا سعداء بريقنا ماله قولدي وسيقى حمر وكبحي قولدي سيادة waxaan ku talin lahaa maanta oo taladeedu maanta ay ku wajahan tahay waa gobolada cudurku waa cudurka aan ognahay khatarta ah waa cudurka aan naqaano sida loo kala qaado waa cudurka aan isku sheegayna maaliyaha baahan in loo baahan yahay in la kala fogaado in maaskiga la gashto in gacmaha la iska dhaqo in nadaafadda guud iyo midda shakhsigaaba kor loo qaado in markii la qufacayo ama tan lagu qufaco inta lagu qufaco waa isku sheegnaa taas waxaan isku sheegnaa kale in waayeelka si gaar ah looga fikiro dadka 50 jirka ka badan in laga fikiro inay dhalinyaradu tahay midda ayadu cudurka ku dhaco gudbinaysa waalidkii iyo deriskii ayada u gudbinaysa intaas waxa maleeyahay maalmaha dhan waa la dhageysanay laakiin maanta maamul goboleedyada waxaan leeyahay wixinu waa bilow hadeer tilaabada fiican oo aad u qaadid dhanka ka hortagu wuxuu aad iyo aad u badbaadinayaa shacabka mas'uulka ka tahay gaadiidka soo galaya dadka saaran kuwa meesha ay joogto ka baxaya hadda in la xakameeyo u baahan yahay waxaan kaloo codsan lahaa suuqyada inta la tago in lagu dadaalo dadka in la kala fogeeyo waxaan kaloo ku tali lahaa maaskarada in la samaysto oo la wada isticmaalo oo aad khasab ka dhigtaan in la isticmaalo qofka isticmaalo la ganaaxo oo ku talinaya wacyigelin xoog badanna inaad samaysaan baan ku talinaya wacyigelin weliba aggressive aan ahayn mid la isku barbaryaaye mid khasaba in la sameeyo inaad samaysaan naftiina badbaado u tahay dadka shacabka ah badbaado u tahay qofka hadduu si wax garanayn waa in wax la garansiiyo waa in wax la fahamsiiyo oo waliba Soomaaliyeena ah walaalo wax kuma fiicnaayo maree goolkood in xooga lagu daro wallahi waa ku tali lahaa aad iyo aad kuwii sameeyana waa la ogyahay maantay guulaha ay gaareen oo adduunka ka gaareen kuwa aan sameeyna hadda waa ognahay wixii dhacay tusaale waxa noogu filan haddaan ka soo qaadano waddanka China iyo Iran iyo Talyaaniga iyo Spain iyo aan noogu filan tusaale waddankii China markii lagu arkay meel walba xiray wuu hakay cudurku iska hakay laakiin intii isku daysay oo goobaha cibaadada iska tagay oo hoteeladoodii dukaamadooda waaweyn u furnaayeen oo suuqyadooda u furnaayeen waa kuwa ugu dhimashada badan leh wadagta maanta China waa waddanka tobnaad haddaysan ahaynba kan ka sii hooseyn waddanka tobnaad maraysa maanta horena iyada number 1 ahayd maanta yaa number 1 Mareykanka ah adduunka maanta meeqa cudur ka maraya 3 milyan iyo 820 kun maraya habciisan inuu mar dhow 5 milyan waa gaaraya 10 milyan waa gaaraya sanadku intuu soo dhamaan hadduu soo ka horba gaarin haddaanoo Soomaali intaasaan aan ka midna shacabkeenuna waa yariya Mareykanka kale hadda isku dhiririno oo 330 milyan war maxaan naano 15 milyan iyo xooga adu 16 milyan waxa dhaamay 16 milyan hadda nagaba go'o dadkeena anaga waxaan rabnaa marka inaan dhamaanteen inta gacnaha isqabsano si xoog badan aanu wacyigelinta u socodsiino waa muhiim taas waxaan ku celinayaa wali marka la dhalinyarada waxaad ogtihiin hadda aad u adkaysanaysid dadka waayeelka uma adkaysanaya cudurka hadda adigu 7 bire ku haynayo asaga hadduu cudur kala qabo geest waa jilbuhu u dhigayaa waana dilahayaa hadda warkaasi wuxuu wali ku sii socdaa ha noqon kan wax dilahaya aanay soogeyn mana ogid inaad wax dilaysid haddana dada sabab u noqonaysa inaad dishid hadalka waa jilcinaya haddii afkaygii Soomaaliga hore la garawaayo ha noqon dilaaga daasan hadda waxaan ku leeyahay waxna ogow inaad cudurka markaa qaadid dad u dhimanayo cudurka aad gaarsiisay hadda marka ismana ogid adu inaad cudurkaas faafisay oo wax dilay marka taxadar badan samee oo talada lagu leeyahay maqal Soomaaliyay
aan isbadbaadino badqabkeenu waa mustaqbalkeena. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.